mu'asasada macadka xanaanada carruurta ee Khawlaan Bintul Aswad ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu soo kordhiyay xarun lagu barbaariyo akhlaaqda diinta Islaamka. Carruurta ay da'doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 5 sano iyo bar. Macadkan ayaa lagu soo kordhiyay waxbarashada maadiga ee dugsiyada hoose. Munaasabad lagu shaaciyay ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiinta ardayda macadka, macallimiinta iyo marti sharaf kala duwan. ugu horeyn waxaa lagu soo bandhigay tayada aqooneed ay leeyihiin ardayda macadka Khawlaan Bintul Aswad. الباب ما استطاع إليه سبيلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. مولاه معدك أباح جامع أيا ugu horeyn waxa ay ka warbixisay ujeedka munaasabadani. ujeedadii aanu qabtay xafladan oo ugu yeeray waalidiinta ay awalba madrasadani u furnayd. ujeedadaas waxa weeye ilmihii aan ku qabanay 4 jirada ee sanadkii barkaayna waxay gaareen 5 sano iyo bar. kuwii 6 jirka aana waxay gaareen sanadkii 7aad. waalidiintu waxay aad u jecel yihiin markii ilmuhu 6 sano iyo 7 sano gaaraan inay ula ordaan maadigii ama iskuulaadkii la geeyo. waxaan waalidiinta sharafta leh ee meeshaan u furantahay marnay inaan ugu bishaarayno in iskuulkani asna uu qaadanayo soo biiriyay maadooyinkii ama iskuulka maadooyinkii asaasiga primary-ga aan rabnay inaan furno ardayda oo tababaran oo qaar aan rabno ayaga oo quraanka sida u baraynay oo diintiisa ugu dhex jiray oo waxyaabaha ay xifdisan yihiin ay hayaan haddaan soo dayno aan la soo koobi karno gobolku nagu dhacayo ayaan haddana aysan ka marnayn baritaankii maadiga. waxaan u diyaar garoobaynaa inaan kalaaskii 2 iyo kalaaskii 1 qabanno. Macallin Bishaar Sheekh Yuusuf oo kamid ah macallimiinta macadka ayaa waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay aqoonta. waxa weeye marka ilmaha waxaan isku boorinaynaa in ilmihii wax la baro. hubaayo xaqiiqo ah hooyada hadafka fiican leh ee ilmaheeda meesha fiican la higsata ee guriga ka tarbiyaysa goobaha waxbarashada fiican ee tarbiyada la geysa inayna ku khasaaraynin. sanad ciyaalka yaryarka Soomaali hadana ilmaha inta alle wax ma barnaba 5 sano jiray macallin ma ku keenaaday gabadhu ku dhahaysaa. hadda ciyaalka waxaan oo aqrinayay wax walba galatay inaga dhargiyay 5 jiro weeyaan iyo wax ka siiya. waxa marka leenahay gabar walba ay fadhiga ka kac waxbarashada waa artaan qiimaha ay leedahay. Faaduma Maxamed Xasan ayaa waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in carruurta yaryar ay helaan waxbarasho dhameystiran. waxa farxad noo ah ilmo yara oo 4 sano jira oo shanta diin islaamiga 6 iimaanka garanaya waxa weeyaan waa farxad Ilaahay mahadiisa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaana mahadaas iskale maamulka madrasada tan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaani ayaa waxa uu sheegay in ilmaha inta ugu yar ay u baahan yihiin inay si fiican loo ababiyo waxana la baro. waa xilliga ilmaha mustaqbalkooda iyo waxa waxbarashadoodu ay noqon doonto buddhiga xilliga u ah ee asaaskeeda la sameeyo. waa cumrigan markay ku jiraan waqtigaan oo kale haddii seesku uu ka khaldamo oo ilmaha waxa weeye jihadu ay ka dhunto oo qaabkii la rabay tacliintu ay ugu bilaami weydo waxa laga yaabaa aakhirkiisa dambe ilmaha tacliintiisu inaysan toosnaan. run ahaantii anigu waxaan aad uga fakari jiray awlaaddu markay soo gaaraan xilliga waxbarashada xageebaa dugsi u geysaa. waalid baa too maalintii oo dhan waa shaqaynaysaa habeenkii adoo daalan baa imaanaysaa habeenkii waxba ma bari kartid maalinkii oo dhan ilmahaas waxay u baahan yihiin meel ay wax ku bartaan xilli ay ciyaaraan farxad ay ku dareemaan. madrasadan markii la furay aad iyo aad baan ugu riyaaqay ilaa iyo haatanna aad baan ugu faraxsanahay macallimiintu sida ay wax u wadaan. munaasabadaas ayaa ahayd mid carruurtaasi ay ku baranayaan qaybaha kala duwan ee diinta Islaamka iyadoona hadda lagu soo kordhiyay waxbarashada maadiga. Zubayr Sheekh Cabdi Samniis TV Gaalkacyo.